من أقول أن من ضوابط الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قواعد إعجاز العلم في القرآن عجز قلنت القرآن وحن كسو بدغنا دمان قاعدوين ساينس حقيقي wax jira bini aadamku hadda uu gaaray taasoo ka noqosho aan lahayn siiba saddexda qadiyadood ee khalqiga abuurka koonka iyo abuurka insaanka iyo abuurka nolosha guud ahaan dhulka dushiisa saddexda qadiyadood ee aan soo sheegay maaha mid bini aadamku aqoontiisa iyo caqligiisa gaaban awgeed uu gaari karayo ama ogaan karayo cilmi ahaan ku ogaan karayo ilaa inta uu jiro haddii uu waayo markaasi naas u cadaynaya oo kitaabka qur-aanka aan ahayn waxaa jirta in badan oo aqoonta sayniska iyo technology-ga ka mid ah in la isku dayay in la ogaado khalqiga insaanka iyo koonka sida uu samaysan yahay haddana inta laga ogaaday ilaa hadda waxa weeyaan in xadidan sidaa darteed baa waxaa la soo qaataa inta badan oo marjac oo reference oo ah in la eego kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam taasina waxay kaashanaysaa aqoontaasi la yidhaahdo dhulka ama geologiga ama anthropologiga oo la eegayo dhulka dushiisa iyo calaamadaha dhulka dushiisa yaala ee archaeologiga aqoonta la yidhaahdo ay soo saarto tiyo ay taasi jirto ayaa haddana aan laga maarmayn in laga qaato ishaaraadka kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam waayo qur-aanku waxa uu sheegayaa in aanu horaantii iyo dabeedii midna aanu iman doonin aqoon kale oo bini aadan gaari karo ilaa haddii ay jirtana waxaa laga helayaa kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam